wasiirka wasaaradda maalgashiga Somaliland Maxamed Axmed Maxamuud Cawad waxa uu ka hadlay maalgashiga warshada sibidhka ee magaalada Berbera lagu sheegay inay si wada jira u maalgashanayaan warshada sibidhka ee magaalada Berbera shirkadda Raysud ee dalka Cumaan iyo waliba ganacsadaha reer Somaliland ee Maxamed Saciid ama shirkadda ganacsiga ee MSG Maxamed Axmed Cawad ee maalgashi ay MSG Maxamed Saciid shirkadiisa iyo Raysud Factory ay ku heshiiyeen ku maalgashanayaan warshada sibidhka ee magaalada Berbera bal aduu wasiirka maalgashiga Somaliland baa tahay arintaasi maxaad kala socotaa horta inta badan qolada Raysud waa qolada Cumaan inta badan sibidhka Cumaaniga ee shirkadaheena dhismay jecel yihiin laga keeno sanad ka hor halkan bay yimaadeen ganacsatada Somaliland wada dihinayay kamaalgashi ahaan waan la kulanay inta badan waxaan ka wada hadlaynay baahida dalkan uu qabo cidii maalgashan lahayd wasaaradda sibidhka iyo warshadaha kala duwanba marka maadaama ay khubaro ku yihiin soddonka sano soo dhaafay ay ku howlanaayeen warshado badan oo sibidhna jiraan way muujiyeen marka waxaan ku kala tagnay inay bal proposal iyo say xudoonayaan inay noo soo qoraan imika tan hadii ganacsadaha reer Somaliland heshiis wada galaan waa ganacsadaha shirkadda u dhaxaysa وانا soo dhaweynaa wax kasto khibrad iyo wanaaga muxuu ahaa dalkeena maalgashiga sibirkana hindiya qura wax ka badan wax ku dhow 5,000 oo warshado sibir ay hindiya la China maxad malay Mareykanka maxad marka inta badan adduunku 1 iyo 2 iyo 3 buu qaadaya ganacsatada hore sibirka la siiyay dhulkeena waxa laga yaabaa limestone hadii laga soo bilaabo ilaa Luqaya ilaa Argabo ingredient kan laga sameeyo limestone ka u badan meel walba u daadsan marka kadib uu wasaaradda ganacsiga tahay inay eegto maxaa inta suuq ma sii qaadi karaya Itoobiyadan ilaa bariid wal liisan ku furnay imku meel joojiyo leeyahay mana 9 meelaha sin maraya bal inta ku joojiyo marka waan soo dhaweynaa anagu cid kasto waxa jeedina soo dhaweysay cid kasto ma kashan soo shida sawirka Berbera marka ka xukuumadaha waxa muuqata Soomaaliya in raali ka tii in Red Saving Company MCG ay hadda maalgashanayaan warshado kaliya taas ka dhiganta in kulli de waxa lagu diiday in reer Somaliland iyo maalgashayaasha kale ay ugu furan yihiin laakiin wasiir waxa jira shirkado iyagu hore heshiis xukuumadda ugu la gashay oo taabshil ka mid ahaa oo maalgashanay bal iyaga maxaad arintooda ka oranaysaa ku heshiiska la galay yani dhulkani uu badan yahay waxa laga yaabaa oo Berbera waxa laga yaabaa 2 kilometer square in heshiiska lagu la galay qolada Berbera sagaalkii sano ugu dambeeyay ogolaanshiyaha haysteen oo madaxweyne Tahriyaal siiyay way jiraan qaar kale oo state bilood inay ku dhisaan qorshayaal ah oo dad ajaaniba oo danaynayaan ka wada hadlayna maxaa dawladda siinaysaa maxaa imisa shaqo abuuraysaa sibirku ma aha resource ka qorayno leenahay waxa jira meelo ka badan oo macdanteena oo dahabkeeni baad arkayseen oo ogtihiin macdaniin kala duwan baad ogtihiin kalluunkeeni baad ogtihiin meelo ka badan oo ka ritaan fiican uga faa'iido fiican ganacsatada iyo maalgashiyaasha qofka waa halku yaradan inuu khibrad u leeyahay ayuu xog ka saaray marka warshada sibidhka oo arkina inay farta subag la darsanay hadii warshada sibidhka inoo dilaacdo waa run u dhaqaaleyn ku reeyay lacag badan oo dibadda inooga baxda ayay noo hakanaysa shaqo abuur baa imanaya aqalada kale ka jira haysta waxa weey light jaban oo jirin in lightkii dhaliyaan warshad kasta ayay noqonaysaa marka sidii ay light jaban u helayn dawayna midii Somaliland dirisku ay gacanta isku wada qabsanayaan dhibaatooyinka si inooga baxno dhibaatooyinka jira marka heshiiska hore ee shirkadaha la galay ma waxa leedahay waa laga noqonayaa hadii cid cusub timaado maya de heshiisku cid walba uu furan yahay soo ku yiri 5 oo shirkadooda ayaa laga yaabaa in adduunka iyo meelo badan bay ka wada jiraan ma waxa la eegayaa intuu qaadi karaya dalkeena halkeen u dhoofin karayna shirkadaha qaar baa maalgashiyaasha qaar baa soo dalbada dhoofino qoraan sameeyno dhoofino qoraan dalbanayna marka kolba sidii suuq loo haysto weeyaan ma aha sibirku de wax weyn oo oran karaysaan marka khayraadkan u leenahay ayuunba kamid yahay sibirku iyo limestone kan haysan geesta kale wasiirka wasaaradda maalgashiga waxa uu faahfaahin ka bixiyay hawlaha maalgashi ee wasaaraddu gacanta ku hayso ee dalka Somaliland iyo waliba safaro ugu baxay dalka dibadiisa qoladan nimka ugu dambeeyay waxaan ku baxay dalka Tanzania oo runtii Somaliland diriskan u sheegay in baasaboorka Somaliland in arrival visa la inuu siiyay wadamada in baasaboorka inuu isticmaali karaan ay kamid yihiin in dalka waxaan ka qayb galay shir ka ballaarinta dekedaha Afrika inta badan shirarka marka la qabanayo waxa isugu yimaada
shirkadaha wax dhisa, waxaa isugu yimaada wasaaradaha khusayso, waxaa isugu yimaada maarayaasha dekedaha kala duwan, waxaa isugu yimaada dadka services kala duwan u qabanaya oo meel la isugu keeno madaxdii iyo dadkii talada ka go'aysay iyo dadkii wixii loo baahan yahay qabanayay ayaa isugu yimaada qodoba iyo tobiga kala duwan iyo panels kala duwan baa la qabtaa. anagii maarayaha dekedaha Soomaaliland baa ka qayb galnay kadib haddana qodobada ayna khuseeyay ee uu maarayo inta badan xoog saari dekeda iyo horumarkeeda iyo halku marayay iyo maxaynu kala dekeda kale u baahannahay. dekeda Djibouti waa madaxdeedu way ka socotay inta badan waxa halka ka soo baxayn Afrikada galbeed oo ugu yaraan 30 dekedood leh, Afrikada bari 30 dekedood bay leedahay. Djibouti qura kuma filna, Casabna kuma filna, Berberina kuma filna dekeda badan oo lagu hayo oo kale, Seylac oo kale, Bulaxaar oo kale, Mayro kale in boorka tuna oo maalgashi u raadinayno. wixina soo dhan waa baahiyo u Afrika ay u qabteen dekedaheena si aynu maalgashina ugu heli lahayn una dhisi lahayn. wana wax dawladaha noo yaalo qorshana ka leenahay hayntum bay ku xirantahay iyo budgetkeena iyo maalgashiyaasha iyo sidaynu iibkeena iyo sida faa'iidooyinkeeda aynu inta badan uga iibin karnaa caalamka. marka inta badan su'aalahaas ay yimaada inta badan waxaan la tartansiinayay balaniga Djibouti waa run xagga dekedaha 5 dekedood ugu yaraan ku leedahay wadanka aynu ku tabacnay in walaalihiina aynu ugu farxano horumarkeena inaguna saasoo kale hiigsigaas iyo horumarka aynu hiigsanayna oo kale. Luqmaan Maxamed Farax, Bulsho TV, Hargeysa.